asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal soo dhowaada casharkan soo socda wuxuu ka hadlayaa haddii kombyuutarkaaga uu virus ku jiro sida aad uga iskaan garayn karto ama sida aad ku ogaan karto in uu virus ku jiro. waxaynu isticmaali doonaa dhalada madow ama CMD sidaa u taqaanaan, ma isticmaali doono wax program ah. So programkan just dhowr line baan qori doonaa ama hal line keliyaba, waxaadna sugi doontaan inta uu soo baxayo. marka koowaad waxaad samayn doontaan, haddii alla idmo, halkan ayaa waxaan ku qori doonaa CMD. waxay noo soo baxaysaa dhalada madow. right click baan siinaynaa, run as administrator ayaan leenahay. yes ayaan ku dhufanaynaa. yes maraan ku dhufano oo ay dhalada madow inoo soo baxdo, waa tane ayaynu waxaan samaynaynaa waxa la yidhaahdo aan farta idiin soo yaro weyneeyo saa u aragtaan. okay, so waxaan leenahay waxaan qoranaa sfc okay slash waxaan qoraynaa scan now, inter baan leenahay. so processkii wuu bilaabanayaa. markuu dhammaado waad akhriyeysaa waxa uu kuu soo saaro. fariimo ayuu kuu soo saarayaa. fariimaha uu kuu soo saaraya qaar ka mid ah ayaan markaa intusi doonaa. mar kasta oo uu dhameeyo, marka processku markuu dhammaado, hadday jiraan faylal corrupted ah iyo kuwo kaloo problematiga, intaba isagaa kuu xalin doona. sawirkaa ayuuna kuusoo bandhigi doonaa. haddii aad si fiican iminka u arkaysaan, waka wuxuu koranayaa unsuccessfully reburied them. waka windowskaasu sameeyey found corrupt files, saasuu kuusoo saari doonaa. saaxiibayaal waa sugaysaan, laakiin mudduu qaadanayaa. kolley waa inaa xoogaa waqtiya siisaan markuu processku bilaabanayo. aad iyo aad ba ugu mahadsantihiin daawashadiina. haddaad rabtaa inaad ka baxdaanna waxaad dhahaysaan control iyo c ayaad taabanaysaan si markaa uu caadigu uga baxo. hadda verificationkii ayuu bilaabay. marka haddaad rabta inaad ka dhammaato, control c, haddii kalena sug inta uu ku dhammaystirayo. aad ba ugu mahadsantihiin daawashada casharkan. asalaamu calaykum.